Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan ka hadli doonaa ragga ugu qanisan adduunka 2021. Kusoo dhawaada fiidiyogeena maanta. Waxa uu ku saabsanaan doonaa ragga ugu qanisan, ugu taajirsan, ugu lacagta badan sanadka 2021. Marka aynu ka hadlayno raggan maamula lacagta ugu faraha badan, waxa si sanadle ah u soo saara wargeyska ka faalooda ee Forbes. Waxaynu ka bilaabi doonaa kaalinta 5aad inagoo ku geyn doona kaalinta 1aad. Lambarka 5aad waxaa ku jira Mark Zuckerberg. Waa aasaasaha shirkadda Facebook ahna maamulaha shirkadda WhatsApp, Instagram iyo kuwa kaleba. Waxaana lagu qiyaasay inuu haysto $117.8 bilyan. Kaalinta 4aad waxaa ku jira Bill Gates. Waa mulkiilaha shirkadda Microsoft. Waxa uu dhowr sano haystay kaalinta 1aad si hadda kaalinta 4aad ayuu haystaa. Hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa $129.9 bilyan. Kaalinta 3aad waxaa ku jira Elon Musk, mulkiilaha shirkadda gawaadhida ee Tesla iyo SpaceX. Waxa uu ahaa kaalinta 31aad hortii, hadeerna waa kaalinta 3aad. $173.6 bilyan ayuu haystaa. Bernard Arnault ayaa ku jira kaalinta 2aad, iyo qoyskiisa ahna maamulaha shirkadda LMV. Waana ninka ugu taajirsan qaaradda Yurub. Hantidiisu waa $183.3 bilyan. Kaalinta 1aad waxaa ku jira Jeff Bezos. Jeff Bezos waa ninka ugu taajirsan adduunweynaha 2021. Waana aasaasaha mulkiilaha shirkadda Amazon ee suuqaysiga. Hantidiisuna waxaa lagu qiyaasaa $201.4 bilyan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.